kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dalkiin meel walba joogtaan isoo walba inoo maqleysan waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu weynaa ee suuqa saaka la hadalhayo. waxyaabaha ugu weyn ee suuqa ayaan markaani eegi doonaa waxaana ka mid ah maanta Kevin De Bruyne, Henderson, Milan, ciyaaryahan Jong iyo Perisic ayaana ka mid ah magacyada ugu weyn ee saaka ku xardhan BBC dhanka iyo gozobka. naadiga Real Madrid ayaa markaan quldareynaysa inuu dhaqaaqdo ciyaaryahanka kooxda Chelsea Spanishka gool ku ilaaliya Kepa Arrizabalaga kaas oo jira 15 sano jirkan Bluesna ku dhibaatoonaya in uu boos joogto ah ka helo, laakiin waxay dagaal adag kala kulmaysaa Real Madrid kooxda Barcelona taasoo rabtay goolhaye Marc-Andre ter Stegen inay ku bedelato goolhayaha lagu magacaabo Kepa. si la mid ah dooqa waxaa halkani ku jira Barcelona waxay sidoo kale rabtaa haddii ay weyso Kepa Arrizabalaga in Manchester United goolhayada amaahda ugu maqan Dani Henderson inay keento gegada All Andrade Camp Nou. sheekoodan waxaa daawacay saaka Star. Real Madridna waxay markaan rabtaa Kepa inay soo qaadato Thibaut Courtois iska dirta Bluesna ay raadsato bedelka saxda ah goolhayaha Kepa Arrizabalaga. sheekooyinka lagu waaweyn waxaa ka mid ah Manchester City macalinkeeda Pep Guardiola ayaa markaan qorsheynaya xiddiga reer Belgium Kevin De Bruyne inuu heshiis cusub oo qalinka ugu duugo isbuuc ku qaadan doono 350,000 inuu isbuuc ku qaato. ciyaaryahanka reer Belgium Kevin De Bruyne ayaa waqti fiican ku qaadanaya kooxda kubadda cagta Manchester City wuxuuna markaan rabaa in uu qandaraas cusub qalinka ugu duugo. sheekada waxaan daawacaysaa Express. sheekooyin kale waxaa ka mid ah goolhayaha xulka England Dani Henderson kaasoo imilka Sheffield United shabaqada u ilaaliya ayaana macquul tahay inuu dib ugu soo laabto gegada Old Trafford maadaama uu bandhig cajiib ah halkaasi ka sameynaya. Manchester United ayaa damacsan goolhayaan inay loolan la geliso goolhayada koowaad David De Gea. warar kale ugu weyn waxaa ka mid ah in Arsenal ciyaaryahankeedii hore ee Dani Hamilton ayaana markaan la sheegay in ay soo qaataan ciyaartooy muhiim oo ah kooxda kubadda cagta Arsenal. Leicester Sports ayaana sheekadani fahansan. Chelsea ciyaaryahankeeda qadka dhexe ninka lagu magacaabo Gallagher ayaana si amaah ugu biiri kara naadiga Swansea City maadaama ciyaaryahankan uu hanaan wanaagsan ku jirin san ayaana sheekada sii daawacaysa. wararka kale ugu weyn ee maanta suuqa waxaa ka mid ah Tottenham Hotspur ciyaaryahankeeda Toby Alderweireld ayaana laga xiriirinaya inuu iskaga hayaami karo kooxda uu hogaamiyo macallin Jose Mourinho lama oga sababta ugu tagi karo kooxdani 90 minutes ayaana sheekada nifaansan. wararka ugu weyn ayaana suuqa kuwaasi ah.